السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تسود وهذا هلكم وجانا الكفالية على وكلا برتين إن كيشان وربحنا مهم كأكوساب سن حرين رداب سامر إنكو شيء وشليتو إن جانا الكفالية إن وحاجري تركوك إن لقي جوجي حق ديرة يرجع لي إفو أمان تركوك جلس وفدي إيمان دونه وفدي أسوأ وفدي إن كيم هذه إن دد عدان أو كيم هذه دق بحياشي إن دق السينجري الله deeqda bixiye marka deeq bixiyaasha ay imaadeen maanta marka waa taan in sheegay oo idan dhahay dhagaxley iyo xaga dheere tirkoobka ma jiraayo waayo tirkoobka askarta ilaalinaysa meesha loo keenayo sifa ay ilaaliyaan amaanka dadkaas ay ilaaliyaan marka maanta waxaan aanay shirki ayaan ka baxnay dhagaxleyaan ka soo baxnay ifoon waxa ka baxay dhalinyaro ka soo baxay xaga dheer dhalinyaro ka soo baxeen dadka dhalinyarada oo dadka la hadli lahaa dhadheeb baa la geeyey laakiin wafdiga markuu soo degay ka hore markaan jidka sii mareeyni waxaan ku aragnay jidkii isbedel oo jidka dhan baa askar lagu daadiyey wax gaari kala socdo ma lahayn askartii aan garanayna dhagaxley ka shaqeynaysa dhan baa wadada dhadheeb iyo ifo dhexdood iyo dhagaxley meeshan dhexdood lagu daadiyey askara meelka duurka iska tagay askar dhan duurka lagu daadiyey marka maadaama la sugayay wafdi heertara ah wafdiga markuu soo degay toos wuxuu u soo aaday xarada ifo oo tirkoobku ka socday tirkoobkii soo indheeyay tirkoobku ku tagay waxa kale uu tagaal dhahay waxa la hayay helboos ifo dadweyne badan oo la kulmay dadweyne wareystay oo la hadlay maadaama dadkan deeq bixiyaasha ay yihiin deeqdi ay bixiyaan oo laga rabay inay dadkii si ay rabtay u gaareen in kale rabay inay ogaadaan haddana ay ogaadaan wixii meesha ka jira iyo fakti xaqiiqda meesha ka jirta ay ugu imaadeen ugu soo sarfeen America iyo wadamaha horumaray oo dhaqaalaha bixiyo dad badan socday oo dadka cadaanka dad badan socday sayid u socday oo meesha shaqaale badan oo UN tan way socotay askarta dawladda Kenya kama marneen intaas oo 20 iyo something gaari oo ayaa meesha imaatay oo wafdi u saarnaa markay soo dhameysteen qariibu anaga waxaan tagnay dadaab 3 saac iyo something markay ahayd NRC compound ana la geeyay NRC compound waxa isku keenay dhalinyaradii xirooyinka dadaab oo 3 arka socotay min 4 qof ah livelihood dad oo beeraley oo beera fashan oo DRC ay sabab galaysa ayana gruuba la keenay maamooyin iyo rag leh meesha isku maanay waxaan sugnaaba 7 saac bar markay tahay ay ka soo dhamaadeen ifo iyo dadweynaha ka soo dhamaadeen waxay imaadeen meesha noo imaadeen waxaa la istaagay bareed marka waa la hadlay dadka meeshan waxay tahay loo sheegay maadaama dadka ay wafdi ay ka imaadeen qurbaha ka imaadeen ay garanayeen meeshan NRC askale soo dhawaada meeshan gruubaha saa joogan adinka ay sugayeen marka gruub on kulbisin inta waxa ku jira dhalinyarada inta maamooyinka ku jira inta waxa ku jirta nimankii oo ayagana DRC oo kuwa farshaxanka bara oo maxaa lahayd cilaanka iyo dadkan dharka kariye iyo waxaas oo DRC ay siiso dhaqaale ay siiso oo ay tababar ay siiso oo livelihood gacanta ugu shaqeysanayaan meesha isku keen shirkii ayaa la gudgalnay way dadkii way iskala gooyeen ninba dad wuxuu u aaday maadaama sayid u badnaayeen way badnaayeen dadna waxay u galeen maamooyinkii kaligood ahaa turjana loo watay wiilashii iyo beeraleyda ahaa ayagana team baa u tagay annagana waxaa noo imaaday team oo dhalinyaradii ka socday xerooyinka dhadhaab ah marka dadkii way introduction isku sameeyeen waa isbaranay waxaa la gudgalay arrintii waxayna dhaheen ka warrama xaalka xarada xerooyinka ka warrama nolosha ka warrama bal nooga sheekay caqabad waxa qabtay maxaa caqabad jirta maxaa dhibaa jiraan dhaheen caqabadii aan ugu sheekeynay waxay jiraan ugu sheekeynay in xaradan la xiray oo waxba hayd aan arkin waxba lagu haysan meesha oo dhib badan ay ka jirto raashinkii la jaray la leeyahay maalin kasta waxa juuleen dadkii wareereen ay leeyihiin xaradu waa la xir rabaa dawladda Kenya ay waqti u qabatay 6 bilood dad soo socdo mise 2 bilood noo dhiman tahay oo aan habeenkii saxanin oo wareersanahay oo waxa la sheegay in oo dadkii ay walaac badan u jiro waxa kale la sheegay in scholarships fara badan ay jiraan scholarshipka ay yihiin scholarship badan dhalinyarada wax barata la siiyo waxa kale la sheegay in dhaqaale loo sameeyo dhalinyarada oo wax la siiyo dhaqaale ay wax ku sameystaan oo laga qabto waxaan ka harnaa laga hadlay arrinta shaqaaleynta dhalinyarada in dhalinyarada la shaqaaleeyo shaqo badan shaqo abuur sameeyo waxaan ka laga hadlay arrinta oo salary ama mishaarka la siiyo 7,000 8,000 la siiyo dhalinyarada oo mishaar ugu filnaan
oo dadkii shaqada aniga boqolkiiba 90 ay qaxootiga shaqada qabanayaan in Kenya iska fadhiyaan report bis loo keeno waxaa kale meesha laga sheegay in hay'adaha dhanba gacmaha ay laabteen wax hay'ad oo nasabood misdad wax siisan misdad u yeertay aan arkin ka heen halahan raashinka meesha kiilooyin aan ka qaadano iyo tirkoob oo ku jirno tirkoobkaas ayagana waxaan ka hadalnay waa loo sheegay tirkoob nagu socdaa la dhahay intaas ma meesha ka jirta wax kale oo aan meesha ku hayna malaha laakiin aniga hadda wax badan qabnaa dhexdeed waa la xiriir waa la dhahay marka waxaa kala joogeen meesha dhamin dhalinyaro oo curyaamaha naftooda waxay ka caawdeen in taxgelin loo sameynin oo la taxgelinin shaqo maga imaato ama markay la faquuqo oo dadka ahwal lagu faquuqo ay sheegeen oo waxba la siinin oo nimankan ay u shaqeeyaan curyaamada u shaqeeyaan inay taxgelin ay siinin marka way naga dhageysteen waxaan kala weydiinay in arintan xarada la xiraayo xiritaanka xirooyinka Dadaab oo la xiri doono in nolosha in la xiraayo in ay ka waramaan waxay warka hayaan iyo waxay noo wadaan in ay sheegaan ayaa lagu soo dhaweeyay marka waxa la soo dhawaada arrimahaas ay sheegnay iyo waxa noo haysiin noo sheega nimankan waxay ahaayeen horta rag soo daalay ha ahaato laakiin waxay noo sheegeen in arintan xiritaanka xirooyinka Dadaab ama Dadaab la xiraayo ay noo sheegeen in wada hadal UN u socdo ayaga iyo dawladda Kenya iyo UN ay u socoto dawladda Kenya ay u socoto wada hadal ay wada hadlayaan arintaasna wada hadal ugu socdo haddana ay ka hor dhici karin wada hadalka ama soo baxa baa la soo qaybsan doonaa wada hadalkaas kadib baa soo sheegi doonaa ay dhaheen wixii warbixin ah ay soo sheegayaan ay keeni doonaan wixii warbixin ay la imaan doonaan marka wada hadalkaas ayaan sugaynaa insha Allah waxaa kale sheegeen markaan wada hadalka ay noo sheegeen tan kale waxay dhaheen waan dhageysnay warkiina saa ay tahay markaan warka hadleen wax dhan hadleen way qoranayeen wax loo bugay buuxsadeen kadib waxay dhaheen waxaan sameynaynaa warbixintii wada hadalka waan soo sheegi doonaa waxaa kale su'aal ayna weydiiyeen in ay maxaan u diideyno inaan wadankeena ku noqono inaan wadankeena dib ugu noqono waxaan u diidanahay ayna weydiin maxaa caqabad ah wadankeena u diidantiin maadaama 31 sano meesha aan joogteen maxaa caqabad keenay u diidin inaan wadankeena ugu noqotiin maxaa caqabad ayna u tahay ama walwal ayna ugu tahay in wadankeena ugu noqotiin maxay walwal ka jira waan u sheegay walwal ka jira waxaan wadankeena ugu imaan waa loo sheegay dad badan meesha joogeen way ka hadleen in security laga hadlay wadanka in meesha dhaqaaladeena loo sheegay in meesha abaar ay jirto warfaad u jiro lisdilaayo waxba dad isku qabsaneen wax la isku qabsanay ay jirin dawlad fiican ay ka jirin dawladeena ay wali ay ogtahay la haysto madaxweynaha iyo wasaaraha is haystaan oo nin naga warqab ay jirin haddanba naga warqabinba 30 sano inta joognaa wax dawlad noo imaad ay jirin wax dawlad naga warqabta ay jirin dawlad oo maanta aan ku tashanayno inay maanta meesha inaga horeeyna hal yar oo arjow ah la hagaajinayo dawladda la qabanayna ayada nafteeda ay noqotay inay isqa qabsadaan madaxweynaha iyo wasaaraha oo loo kala safto siyaasiyiinta iyo dadka Soomaaliyeed ay u kala saftaan ay noqotay ayaan loo sheegay meelaha aan ka shaqeysan lahayn sidii jubooyinka iyo meelaha dhan amni fiican kama jiro hal yar oo muqdisho ka jirin hal yar oo arkaysa qaraxay iyo rifaadka iyo dhibkiya bilowday marka waxay dhaheen waan fahanay way qorteen arintaas way qorteen marka waxaan dhahnay nimanka Soomaali aniga Soomaali kaliya kama ahayn meesha South Sudanese aan la jireen Kambeelana la jireen oo qaxootiga oo degan xiriirka Dadaab ay naftooda way sheegeen in wadankooda dhib ka jiro oo rifaad ka jiro oo maalinka la isdilayo ninka la dilay laga tilaabsanayo waxba oo ay jirin marka waxaan ka hadalnay in arrimahaas ay jiraan saas awgeed aan meeshan amni ku baranay aan rabno inaan inta sii joogno haddii ay aqli ay noqonayso oo dawladda Kenya iyo UN isfahmi karaan waxay dheentaa waan ka hadli doonaa jawaab baan ka keeni doonaa dawladda Kenya iyo anaga wada hadal halka ma ku dhamaado ayaa jawaab naga heli doontiin tan kale waxay kale sheegay waxaan kale la sheegay in dad badan oo xerooyinkan ku dhashay hooyada aabood inta keenan hooyada aabi inta ku dhinteen ayaga garanayeen meel ay ku noqdaan marka way jirtaa caqabada dhan way jirtaa caqabooyinka dhan way jiraan marka caqabooyinkaas laga hadlay waqtiga ku socday dadka meesha imaaday laakiin wax kasto aan sheegnay oo meeshaas ka dhacay maanta waa la qoray waa la diiwaan geliyay laakiin dad baa waxaa maqlayay magan soo galay xerooyinka aan imaaday galabta amin dambe imaanay waxayna magaalada la soo geliyay in la dhahay laga hadlay arinta Camp Closure oo xarada in la xiraayo oo mar dhow la xiri doono ay sheegeen waxa walaalayaal waxba kama jiro dhib ma jiro dadka alla barakicin wax dhib jira ma laha dadka way hadalnay hadal bay noo sheegeen hadal ujeedin way noo jawaabeen laakiin waxa la dhahay wala guur xirooyinka iyo waxa la xiraa ilaahay ma jiraan laakiin su'aal bay weydiin dadkii wadankiina maxaa u diidantiin inaad aadiin wadankiina maxaa niga hortagaan inaad aadiin meeshan 30 sano joogteen inaad ka tagtiin maxaa u diidantiin taa ani waxaan u arkay in meeshan ay leeyihiin inay ay naftooda wajigooda ma fiicneen ay naftooda sidii bariyo doonas aan la arki jirnay ama dadka dhaqaalaha bixin arki jiray oo kala ma ahayn
marka ayaga naftooda dad daalay u ekaayeen qofka hadduu daalo oo kugu daalo waa garan kartaa inuu kugu daalo hadda saakii subaxiyaan tagnay meesha qadaha taan lama siin oo meesha anagoo gaajaysan subaxiyaan untana kasoo tagnay markiiba arrinta ay bogeen daaqadaha xirteen way dhaqaajiyeen anaga gaari baan nololkeena soo dhaqaajinay gurigeena gaajku maan saaka ugu baxnay marka waa arki kartaa qaxooti in la nacay oo gacan bidix lagu qabto arki kartiin waayo qaxooti waxaa ahaan jirtay dadka markii la wado meel la geeyo in qurac la siiyo wax la siiyo oo laga warqabay ahaan jirtay bini'aadanimo hataa ma jirto meesha marka waxaan qabaa arrintaas inkastoo oo qaxooti aan nahay aan meel sii arki karin in dhagahan ugu taagnaadaan dowladda kenyana dee 6 bilood noqoto ogtiin kamayna noqon wadahadal u socdo halka aan ka warsugno insha allah wadahadalka wixii ka soo baxa dowladda UNHCR waxay dhawaan soo sheegi doonaa marka ayadaan ka warsugayna insha allah asxaabta iyo dadweynaha ay isdejiyaan marka maanta iyo berri guur wax ma jiraan wax tagaya ma laha wax ku fiijinaya ma laha repatriation rabto qasab ma aha waa ninkii rabo waaye wax qasab ay ma jiraan marka intaasaan maanta kala soo kulannay dadkii soo wacayay oo asxaabta ahayd oo channel ku xiran waa mahadsantihiin inta nala joogta mahadsantahay inta nala joogin haddana aragto fadlan subscribe noo saar noo like garee noo share garee waa inoo muhiim arrinta tirkoobka berito tirkoobkii dib ayuu u bilaabanayaa ifo dhagaxley iyo xaga dheer saddex araba ifo maanta tirkoob uu ka jiray berito waxaa gelayay C15 iyo C16 C15 haddaan ku bilaabo 9 le 8 le 7 le 6 le 5 le 4 le 3 le 2 le iyo 1 le 16 le C16 haddaan tago 13 le 12 le 11 le 10 le intaas waa C15 haddaan tago xerada xaga dheere maanta tirkoobka ma jirin waxaa gelaya E9 iyo E10 iyo F1 E9 waa 9 le 8 le 7 le 6 le 5 le 4 le 3 le 2 le 1 le E10 15 le 14 le 13 le 12 le 11 le 10 le 9 le 8 le 7 le 6 le 5 le 4 le 3 le 2 le iyo 1 le F1 13 le 12 le 11 le 10 le 9 le 8 le 7 le 6 le intaas waa F1 inta waxa dheer iyo ifo haddaan ta waxa dhagaxley waxa gelaya B10 3 le 2 le iyo 1 le C0 15 le 14 le 13 le 12 le 11 le 10 le 9 le 8 le 7 le 6 le 5 le 4 le 3 le 2 le 1 le C haddaan tago haddaan tago C1 xerada dhagaxley C1 16 le 15 le 14 le 13 le 12 le 11 le 10 le 9 le 8 le 7 le 6 le 5 le 4 le 3 le 2 le 1 le C2 14 le 13 le 12 le 11 le 10 le 9 le 8 le 7 le 6 le 5 le 4 le 3 le 2 le 1 le C3 11 le 10 le 9 le iyo 8 le intaas waa C3 inta waxay ku eg tirkoobkii xerooyinka dhadhaab oo berito dib loo bilaabayo maadaama maanta loo jeeyay wafdi joogay xaga dheere iyo dhagaxley wafdi loo joojiyay berito ayay dib u bilaabanayaan xaga dheere iyo dhagaxley asxaabta waxaan u sheegayaa in arrintaas ay muhiim tahay xaga dheere iyo dhagaxley loo sheego dadweynaha ha la sheego barnaamijka ha loo sheego arrinta fadlan warbixinta la gudbiyo haddaa ku aragto janalkan faaliyaha fadlan oo Facebook ku aragto fadlan sheegare Facebook ku sheegare haddaa rabto inaad warbixinaha hesho fadlan Facebook waxaad heli kartaa channelka faaliyaha dhadhaab YouTube faaliyaha dhadhaab Twitter aan heli kartaa WhatsApp aan heli kartaa dhammaan fadlan waan heli kartaa fadlan subscribe noo saar like gare share gare wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu